maanta waxaa farxad inoo ah inaynu si rasmi ah u daahfurno qalabkii iyo xafiiskii dhowrista tayada dhismaha oo shaqo fiican ka qaban doona ujeedadiisuna tahay in la soo celiyo tayadii dhismuhu uu lahaan jiray la tijaabiyo la hubiyo la jeegareeyo kadibna ay ama ha noqoto highwayada iyo wadooyinka ha noqoto guryaha ha noqoto qaybaha kala duwan ee dhismaha dhammaantii ay sidaa ku hawlgalaan wasaaraddu hormuud bay u tahay infrastructure-ka ama dhismaha dalka guud ahaan hadday guryo tahay iyo hadday tahay wadooyin iyo hadday tahay xafiisyada dawladda iyo goobaha kala duwan oo adkaysiga iyo difaaca dhismuhu inuu tayo leeyahay waxa wax ka tarayaa dabaylihi hadday dhacaan roobab iyo fatahaada hadday dhacaan sida waxyaabaha kale oo ay qarax hadduu dhaco gudeeda inuu u adkaysanayo cadceedda iyo qoraxda u adkaysanayo waa arkaynaa dhismayaashii 1991 ka hor la dhisay sida weli adkaysigoodu uu yahay u adag yihiin kuwii dambe ka dambeeyay waa suurtagal in kuwa badan oo fara badan tayada iyo quality ay leeyihiin laakiin heerka caalamiga ah tayada dhismaha inaynu maanta daahfurno qalabkii dhammaantii waxyaabaha kala duwan ee dhismo ka kooban yahay lagu hubinayay tayadooda iyo heerkoodu nooca uu yahay lagu dhowraayay inaynu haysano meelaha kale ay tahay inay ka shaqeeyaan ay ka furmaan ay ugu horeyso dekada xamar iyo airportka waa kala shaqeyn doonaa wasaaradda inay xarumihii muhiimka ahaa ay ku yeeshaan si loo dhaqaajiyo loo dhiirigeliyo oo ay shaqadu meel kasta uga socoto u taabo gasho maanta laga bilaabo waa inoo furan yahay xafiiskii qalabkii dhowrista tayada waa haysanaa wasaaraddu way ku hawlgelaysaa shacweynaha Soomaaliyeed iyo shirkadaha dhismaha waxaa u soo jeedinaynaa inay wasaaradda kala shaqeeyaan oo ay ka wada shaqeeyaan inaynu dhammaanteen dhowrno tayada dhismaheena aynu ku noolaanayno aynu xafiisyada ka dhiganayno aynu bilicda magaaladeena qaybta weyn ka noqonayo iyo magaalooyinkeenaba iyo dalka guud ahaan waa mahadsantihiin si rasmi ah ayaa inoogu furan yahay xafiiska iyo qalabka dhismaha ee dhowrista tayada dhismaha oo ay wasaaraddu ku shaqeyn doonto meelaha kalena waa ka wada shaqeyn doonaa insha Allah. Hambaliyo guul baan leeyahay. Assalaamu calaykum.